وكفاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا كدب مركورة وحن جعلها ورالها تلبرو ورنتي اسكوها ولي أنت هي مشروع الله بعنا الدعوة إلهي سبحانه وتعالى يمكن قفصته وسامي كجيستي وحياة الفرين الله بعنا عندنا هاي تذكى الصومالي وقوها الله يكونوا الغربها مواضيع ما أنت يتكبح دورا يكون ما أنت ليش اللي يسويه وعوار أنت يكون الأرض وبهنا مركا جزاكم الله خيرا قفصته صور حاضري قفصته عنك جيستي إلهي سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم إلهي من قدر إنتاس مركا أنت أقول ولا رح نجعلها هاي موضوع وقت كان ونروح ما أنت ذكوي متقنا وقت بدن أيا ماشى عن وقاضنا لكن إلهي بحبي سنروح سالم تحيل مركا وواح ما أنت نروح الرجاء طريقة لها الناس نكون بحنينه وحلقيها ما أنت نصيب لنا نوصل يسوع لكن ما لنا نقبعنا هاي أيا نروح الرئيسة مركا قفك سلسلة ونيستو وحان جعلها موضوع أن المؤتمر كلمة ما أنت لنا كهذاين waxaan ku noolayn hooska ciwaanka guud ee mu'tamarka oo ahaa al-islaamu diinu wa raxma. islaamku inuu yahay diin raxmadeed iyo diin naxariiseed ayaa laynoo qaadaa dhigay si fiican laynoogu sharxay. waxaan rabaa marka raxmaddaas qayb ka mid ah inaan aniguna dhinac farta kaga tilmaamo maxaa yeelay sheekheena khayrka badan sheekh usuuli oo hadda hadlayay marabo axaadiista iyo aayadaha tirada badan oo culimada noo sheegeen inaan taxliiliyo laakiin tusaale ahaan hal xadiis oo bukhaari ah ama saxiix albukhaari ku sugnaaday ayaa rasuulku wuxuu nooga sheekeeyey ayna waraabiyey in qofkii ninkii aygaas waraabiyey inuu ilaahay ugu dambi dhaafay. markaasna rasuulku mataqaana xadiiskii ku khatimay kullu kabadin رابطين له أجر ذلك استوى قيم أجر أيوني هذه أي أساس نغضي قف مسلمة ورباطيسا وأدمان إسكارب تحتي وحيوان كتان منزلة أيلا قف مسلمة التوحيدة وعن سكوف اللي لحالهان ولحال كيسي كبر استاكتي سنو بريتا ونقلها قفلة ما يستلم ويسو باهي سدبوشا waxaynu noqon kartaa arrin aan la dayici karin. marka taasna waxaan rabaa laba mithaal inaan idinku caddeeyo. dadka naafada Soomaalidu guud ahaan iyadoo dhibaato badan qabta ayaa haddana bulshada naafada ah ee geeska Afrika ku nool waxay yihiin dadka ugu dhibaatada badan bulshada Soomaalida. waxay yihiin dadka aan isweydiinin ama aan haysanin dad u taagan oo arrintaa ka hadla. arrintaas runtii dhibaato badan oo idinku aad ka wada dhageysantihiin waxaan sharax u baahnayn ayay maaragtay ku jiraan. waxaan rabaa laba mithaal oo kooban inaad siiyo si aad matalan hadalkaan sheegay wax badan uga fahamtaan. maxaa yeelay inaan wax badan idiin sharxo waxaa ka muhiimsan inaan mithaale idin siiyo. mithaalka koowaad idin siinayo wuxuu yahay dadka matalan waxbarashada dadka naafada waxaan aniga dadkii xamar wax ku bartay markaan jaamacadda ku jiray oo jaamacadda ku jiray imtixaanaadka jaamacadda dhibaatadan ka mari jiray oo kaleeto khaasatan aniga facility-ga ama dadka loogu talagalay wax ku bartaan yani facility adeega dadka naafada ah kama jira waddankii. marka adeegii hadduusan jirin qofkiina inuu wax barto uu rabo bal ka waran iskoolada marka qofku tago tusaalahaan qofku uu dhalaayahay wuxuu rabaa inuu iskool tago waxaa leeyahay war dadka ilaah qabi wax barlaan away dhala see wax kuu bari karaa mamukuna qasi muwaalanta oo hadduu helada lacag wax ku bartay iyo suuq ka soo barto. marka waxaan xasuustaa imtixaanka finalka oo maaragtay final examinationka wuxuu soconayaa 3 sano 3 saacadood. 3 saacadood waxaa laga yaabaa qof imtixaanka kuu qoro inaad sugto. oo jaamacaddii magaaladii aan ku barbaaray laga yaabo macallimiinteeda inaan inta badan garanayo maamulka inaan inta badan garanayo dadkii walaalaha ehelka qaraabada ay ku wada jiraan
marka dhibaato adag ayaa runtii halkaas ka jirta wax ku soo barnay mana aha dhibaatadu mid qasada laakiin dhibaatadu waa dhibaato mujtamac ka jirta mujtamacii kuma yaqaano siduu kula dhaqmo umana dhisna marka matalan nimid halkan wax ku bartay imtixaan baa ku galay tusaale ahaan waxaan xasuustaa imtixaanka galnayo bilinka dhan imtixaanka mataqaanaa imtixaanka lagu qaadayo dhan waxaa lagu dhijin anuu keligii imtixaan galaya cabdifataax ayaa maanta imtixaan galaya hala yeelayo buuq laba qof ayaa mataqaanaa imtixaanka iga qaadaysa oo lacag ugu siinaya imtixaankay wasaaradda waxbarashada ee waddanka Netherland ayaa baabuur soo diraysa oo qaadaysa bal fiiri marka imtixaan hal qof keliya oo inta wasaaradda baabuur soo dirto imtixaanka lagu qaaday inta isu jiraan farqi marka bulshadeena halkaas ku nool oo halkaas maarta waxbarashada halkaas marayso ayaa waxaan garwaaqsanay sideen dadkii wax ugu qabanaa marka taas ayaa waxaan markan isniin dadka naafada ah haddii cunto la siiyo ama dhar loo gado wax badan baahida kama bedelayso laakiin waxa ugu muhiimsan ama ugu wanaagsan inaan dhinaca waxbarashada dadkaas ka kaalmayno iskuulkii ugu horreeyay ayaa dadka indhaha wax lagu baro ayaa waxaan aasaasnay 2005 magaalada Muqdisho laga gruub kale waxaa iskuulkaas lagu bartaa farta bareerka 2005 waa shalay ka warrama haddii adduunka ka jirtay 200 sano ka hor farta bareerka dadka indhaha wax ku bartaan ninka la yidhaahdo Louis Braille oo u dhashay waddanka Faransiiska 200 sano in ka badan ka hor ayuu waddankan ka soo saaray isaga runtii taariikh ayuu lahaa isaga maartay indhabeelay isagoo yar ka bacdina fartaas ay soo saaray adduunka 200 sano ka hor ayay ka jirtaa anaga 2005 iskuulkii ugu horreeyay noocaas ayaa laga aasaasay iskuulkii ayaa waxaan damacnay marka in aan da'yarta soo socota dadka yani baahidu way badan tahay si aan baahida bartilmaameed khaas u sameyno da'yarta soo socota ee gabdhaha iskuulka markaan bilaabay waxaan xasuustaa gabdho 15 sano jira 17 sano jira oo sida salaad u tukadaan aqoon salaada ma yaqaanaan ashahaadada macnaheedu ma yaqaanaan gabdhihii guriga ka soo saaray salaadii baan baray mataqaanaa atixiyaadka oo loo macneeyo iyaga oo qorta يعني دكتور يقول هذا بين بس خلاص محورة وردنا وقول لا محورة يعني خلاص وارد نبيشه أنا أقول جالس صحة محلها هذه الحاجات صعبة هذه خوف كما تربوا مو بباهيس إنه دبارة كانوا برشيد سنحتاجها مركز تاسع وصلنا أيام عن أساسنا هالكن وعن على سنين المشروع قدمنا تذكر باهيس على متاجر halkan markii mashruuc la qadimayo waxa marka hore loo baahan yahay inaad istiqti leedahay hadii kale hadaad jiha ka socon cid caawinaysa ma jirto istiqti Soomaaliya ka jira ayaan ka diiwaangelinay oo yiraahdo Disabled Welfare Foundation waa hay'adda daryeelka naafada markaas ayaan gudbinay mashruuc ku saabsan waxbarashada dadka indhaha ee Geeska Afrika khaasatan Muqdisho mashruuca ugu horeeya markii ugu horeysay jawaab waxa ka soo bixiyay hay'adda Netherland oo tii mashruucaas waxaan bixinaynaa 100% jawaabtii labaad waxay noqotay iyadana qolo Turki ah ayay waxay dhahneen 100% ayaan dhiibaynaa mashruuci alxamdulillah waxaan maanta idinku bishaareynaya 100% moogiintiisa kale waa maqfuul ilaahay ayaa keenay waa la damaano qaaday wuxuu u baahan yahay keliya mashruucii 100% ayaa dhiman marka waxaan taasna ka raadinaynaa oo runtii lacag aad u yar markii la fiiriyo waa lacag 8,000 iyo jajab oo lacagta waddankana marka dadka muxsiniinta ay khayrka jecel in iyaguna musaahameeyaan waxaan keenay marka foldaradii iyo falaayaradii macluumaadkaas oo dhan ay ku qoraayeen qofku wuxuu ka qayb qaadan karaa hal mar inuu ka qayb qaato ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay في ميزان حسناته وقدر قفكي أرنتاس محن كده عن كجيسة أنا واحد سودينا إن دكاس قفك سوّح وصدقي إن جعنتي سإن جادو ودريته صدقة جارية إن نقطه عديت تأدوه وكتره سيد رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وشيء صدقة جارية إن وصعته مركو كتره قفك قف أحبار قفكاس علم جيسة سنت نوريه علم جيسة روسي المنطقة على المنحفنايو يسجل ويجاريسا وجزاكم الله خيرا.